madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa xafiiskiisa qasriga madaxtooyada kulan kula qaatay wafdi caalami oo ka socday dowladda waddanka Ingiriiska oo warkacaya agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas Ingiriiska. Safiirka dalka Ingiriiska u qaabilsan arrimaha Somaliland iyo Soomaaliya. Kulankan ayaa waxaa madaxweynaha Somaliland ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland, xubno ka mid ah golaha wasiirada ee Somaliland. Kulankan ayaa saxaafaddu dibad joog ka ahayd ayaa waxaa lagu gorfeeyay laguna qaadaadhigay arrimo la xidhiidha doorashada golaha wakiilada iyo madaxtinimada oo dhowaan madaxweyne Siilaanyo wareegto soo saaray oo ku kala qaaday. Markii kulankani soo dhamaaday ayaa waxaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay kulankan iyo ujeedooyinka uu daarnaa afhayeenka madaxtooyada Somaliland Xuseen Aadan Cigade. waxaa xafiiska madaxweynaha ku soo booqday wafdi ballaaran oo hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Ingiriiska Mr. Simon McDonald oo ay weheliso safiirka dowladda Ingiriiska oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland Mrs. Harriet Matthews. guud ahaanba xukuumadda waxaa laga wada hadlay iyo wafdigaasi waxay ka wada hadleen arrimaha nabadgelyada mandaqada, arrimaha dhaqaalaha, iskaashiga xagga horumarka iyo gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. madaxweynuhu wuxuu wafdiga u cadeeyay in duruufaha dalka ka jira iyo xaaladaha dalkeenu ay kalifeen in doorashada la kala qaado, halka uu madaxweynuhu badka soo dhigay in doorashada madaxweynenimada oo ahayd tii haddii wax dib loo dhigi lahaa uu yidhi taa horaa loo qabanayaa oo waqtigeediina way dhacaysaa 18 bisha 3 2017 haddii la yidhaahdo. madaxweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay oo cadeeyay inay danta qaranka iyo maslaxadda ummadda Somaliland ay ku jirto in ummaddu ay hesho cid walba ciddii represent gareyn lahayd, maadaama habka waqtigan xaadirka ah baarlamaanka ama golaha wakiiladu uu ku dhisan yahay ay tahay hab aan gobollo badan iyo degmooyin badan aanay ku qanacsanayn. doorashadii hore 2005tiina qaabkii lagu galay wuxuu ahaa qaab ah hal mar oo kaliya, taasna waxaa jiray maxkamadda guud, maxkamadda Somaliland dastuuriga ah, maxkamadda sare, in qaabkii hore hal mar dib loogu galo, hal mar oo kaliya lagu galo in dib loogu galin. waxay ahayd mas'uuliyadda dastuuriga ah ee golaha wakiiladu inay diyaariyaan sharciga iyo shuruucdii lagu dooran lahaa baarlamaanka. nasiib darro madaxweynaha ayaa dib loogu soo celiyay. madaxweynuhuna wuxuu arkay inay mas'uuliyaddiisa tahay in dalkan uu ka tago isagoo oo ishaysta, isagoo oo mida, isagoo oo walaala ah, isagoo wada jira. madaxweynuhu isagoo qiimeynaya xaaladaha noocaasa wafdiga dowladda Ingiriiska wuxuu ku sheegay inay mudnaanta koowaad iyo muhiimadda koowaadba ay leedahay wadajirka iyo unity-ga iyo mudnimada ummadda Somaliland. guud ahaan dowladda Ingiriiska wafdiga ka socday waxay carabka ku dhufteen inay jeclaan lahaayeen in doorashada mar la wada qabto ta baarlamaanka iyo ta golaha wakiilada iyo ta madaxweynenimada. madaxweynuhu wuxuu sheegay in haddii uu doonayo inuu dib u dhigto ama isaga uu ku jiro kursi jeclaysi iyo damac inuu ta madaxweynenimada dib u dhigi lahaa, laakiinse duruufaha kalifay in labadaba la kala qaado oo tii madaxweynenimadu waqtigeeda ayay qabsoonaysaa. wafdigu aad bay ugu hambaleeyeen go'aanka geesinimada laga qaatay ee tii madaxweynenimada timekeedii lagu qabanayay. sidoo kale waxaan suuragal noqon inay warbaahintan la hadlaan wufuudani caalamiga iyadoona qaaraan bixiyaasha Somaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka ay diiradda saareen in mar la wada qabto labada doorasho ee madaxtinimada iyo golaha wakiilada. walow madaxweynaha Somaliland soo saaray dhowaan wareegto ku kala qaaday, iyadoona xukuumadda Somaliland ay diiradda saartay kuna adkeysatay go'aanka madaxweyne Siilaanyo. balse la hadli waagani wufuudani caalamiga ayaa u muuqda shirkaasi inuu ahaa mid lagu kala kacay. Khalid Cabdikariin Xaaji, shabakadda caalamiga ee Jarcad News, Burco.